Soomaaliga haduu laaluush qaato Kenyan-kan uu qaataa Ethiopian-kan uu qaataa Uganda-kan uu qaataa dabcan waa ka sibanahay marka mar walba waxaan is leeyahay fashilka ugu weyn wuxuu ka yimaadaa madaxdeena in Soomaalidu maanta isku tashato ani aad u xoojinaya sababtoo ah muddo 20 sano ku dhow hadii howlgal qaramada midoobay ay wado waxba lagu keenay in maanta la isku tashto oo inta amisom la iska saaro buri biya loo kala bixila ama ayagu ha qabsadaan dhulka ama Soomaali kale dhulka ha la wareeg markay laaymiga marayaan waxa la dhahaa kuwii balaaya maraayo balaay Allah ku ridee wax qaldan ay shacabka ka aaminsan yihiin ma isdhahayaan kuwaana ku difaacayaan amnigiina loo keenay inay sugaan cid ka aaminaysa maanta ma lahan wadanka in laga sifeeyo wax walba ajaanib hadda sida ognahay wadamada ajaanibka ciidamada dibadda laga keenay la geeyay oo loogu talagalay in nabadda iska ka shaqeeyaan aakhirka waxa ku dambeeyay burburaan ama ay burbur ku dhawaadaan marka Soomaaliya intay burbur lahayd ama waxyaabahaas ku dhicilaa in laga joojiyo lagana sifeeyo ciidamadii hore amniga hadarta madaxweynaha waxa la wareegay ciidan Soomaaliyeed ma arkin sidoo sheegaybo hadartan wax oo madaxweynaha problem oo qabsaday si lamida ciidanka Soomaaliyeed hadii la dhiirigeliyo qarashka admisku baxay ciidanka Soomaaliyeed lagu bixiyo meelaha waaweyn loo dhiibo ciidanku waxay helayaan dhiirigelin